السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوالة جنرال كيغا ما أنتو حارة إنا كهالله برنامج dhalinyarada aad u haysto oo aan dhihi karo dhibaato ku yahay barnaamij wax kala ma ahan maxaa ka hortaagan dhalinyaradena Soomaaliyeed inay adduunka wax la qaybsadaan maxaa ka hortaagan marka waxaan rabaa inaan fikradeeda ka baxsado waxa naga hortaagan hadan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed inaan wax la qaybsano adduunka marka ku soo dhawaada maanta fiidiyoogina intaas aan uga hadla rabaa horta adduunka waxaa jirto waxyaalo oo lagu wada xiriiro sida social media oo kale waa tiknoolajiyada aad u kacsan oo dadka inta badan ay isticmaalaan wax kan looma isticmaalo waxaa loo isticmaalaa in communication-ka uu fududeeyo iyo in ay aqoonti qofka iyo in oo qofka wax badan faa'iido hada social media qofkii Soomaali joogo isla markii codkiisu wuxuu cod dheer wuxuu ku gaarsiin karaa adduunka daafiis kale marka waxaana marka inaan qodobeeyo waxa dhalinyaradena ka hortaagan waxa u diidan inay adduunka wax la qaybsadaan yes Soomaali mostly waa la hadal hayaa like ani Soomaali waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaali waxaan aaminsanahay Soomaali dadkeed inay yihiin dadka ugu firfircoon adduunyada hadii wax la qabsasho laho hadda oo kale Mo Farah oo kale waxa waaye ciyaaryahan guulo badan u keenay British dalka Ingiriiska hadii Soomaali oo ciyaar lahaa guuraha Soomaali ayaa la hadlay hadda oo kale Congress-ka Ilhan Umar waa Soomaali waana xijaabi geelkii ugu horeeyay oo Congress-ka ka qayb galo waa san rajaynayo laakiin ma hubo marka Soomaaliya hadii la laho dadku ugu firfircoonaa wax qabsasho hadii la laho laakiin waxyaalo waxaa jira oo gadaal noo dhigayo anaka ahaan waxa waaye luqadda hadda wax lagu wada xiriiro waxa waaye laba luqadood waaye luqadda Ingiriiska iyo luqadda Carabiga marka qodobkaas waa qodobka ugu muhiimsan anaka dhalinyaro ahaan haysto oo aan rabno in laga shaqeeyo oo in badan laga shaqeeyo aan u baahanahay hadii luqadda aad iska dhisid wax badan ku fududaanayo waxa wax ka ogaanay aqoontaadii aad iskuulada ama jaamacadaha ku bartay oo Soomaali ah ku baratay waxa laga yaabaa hadaa luqadda isticmaashid in aad waxyaalo badan oo cilmigaas ku saabsan inaad sii ogaatid marka anaka dhalinyarada waxa gaabka culeyskan haysto waxay tahay luqadda aanan si fiican uga hadli karin waa kuwa dalka joogan ka hadlaa kuwa dalka joogo luqadda maadahaan loogu dhigaa haddana ma aqaano culeys dhankaas ka jiro marka luqadda ku hadalkeeda waa muhiim qoraalkeeda inta laga qoraalkeeda dad badan yaqaan waa jiraan wax ku qori karo laakiin waa inaad wax ku gudbi kartaa waa inaad qof kula xiriiri kartaa ma fahamtay luqadda marka muhiim waa inaad wax ku gudbi kartid waxna aad kaga faa'iidi kartid kaliya inaad qortid ma ahan marka luqadda waxyaalaha aad ku bari kartid waxaa kamid ah inaad luqadda baratid social media qaybtiisa Ingiriiska in badan inaad daawatid loo fiidiyaal Ingiriis lagu turjumaa inaad daawatid filmaan oo Ingiriis lagu turjumaa inaad lagu turjumay ama ay ku hadlayaan inaad daawatid aniga hadda luqadda boqolkiiba waa ku hadli karaa ma dhihi kari laakiin mostly aqoonta aan bartay waxyaalaha aan bartay sida acting oo kale iyo xirfadaha oo kale graphic design-ka video editor-ka waxaas dhan qof Soomaali maan ka baran waxaan ka bartay macnaha waxaan ka bartay kuwa oo ku soo gudbiya Ingiriiska koorsooyinka Ingiriiska lagu soo gudbiyo luqadda Ingiriiska socda ama Carabiga ayaan ka bartay in badan aan ka faa'iiday marka xirfadan hadda aan hadda videogan ana digreysanayo ana duubanayo that means ana asbaray waxaan isku baranay waxay tahay luqadda ay fududeyso sababtoo luqadda wax badan aan ka fahmayo sababtoo waxa badan film fiirsashadeeda oo luqadaha kale aan ku fiirsanayo Ingiriiska oo kale taas ay fududeysay waxaan isticmaalaa app la Reddit website uu leeyahay Reddit kaas aan isticmaalaa Reddit kaas marka waxa lagu soo qoraa waxyaalo sheekooyin faniya sheekooyin dhacda oo lagu soo qoraa in waa akhriyaa marka alxamdulillah waxay fududeysay inaan aniga aan luqadii qofku ku hadlaa aan fahmi karo aan xitaa isticmaali karo inaan ku hadlo qof kale communication aan kula sameeyo
marka waxaan rajaynayaa inay isbedeli doonto siiba tan ugu muhiimsan waxaa waa tan luuqadda inay isbedeli doontaan rajaynaa insha allah hadduu alla idmo insha allah fiideogan halkaan kusoo gabagabeynaa hadduu alla idmo waxaan rajaynayaa dhalinyarada inay horumarka dhanka luuqadda ay sameeyaan haddii luuqadda dhanka horumarkeeda aad samaysid waxyaalo badan ku fududaanaya so insha allah waxaan rajaynayaa inaad in badan aad wax ka faa'iidi doontaan fiideogan waana mahadsantihiin haddii aad channel ku cusub tahay subscribe garee haddii aad hore u joogtana fiideoga like garee share garee asxaabtaadana la wadaag thank you waa mahadsantahay